iyadoo maalmihii ugu dambeeyay guud ahaanba deegaamada ay ka howlgalaan suxufiyiinta Soomaalida lagu qabanayay xaflado ballaaran oo lagu weyneynayo 3 May oo ah maalinta suxufiyiinta adduunka ayaa maanta magaalada Burco lagu qabtay kulan ballaaran oo uu soo agaasimay ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier kaasi oo lagaga hadlayay xuska maalintan iyo waliba tacadiyada xad-dhaafka ee muddooyinkii ugu dambeeyay lagula kacayay wariyaasha ka howlgala warbaahinta Soomaaliland waxaana kulankan oo isagu ahaa mid ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco iyo waliba aqoon-yahan kale oo tiro badan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soldier ee gobolka Togdheer Kayse Axmed Digaale intii labadii sano oo u dambeeyay ama inta xukuumadda kulmiye haysay xorka kale kulay saxaafadu waa maalmaha ugu dhibaatada badnayd inkastoo xukuumaddu tahay tii horeysay ay taageeraan ama ay gacan siiyaan saxaafadu oo la wada og yahay in ka badan 90 suxufi ayaa inta ay jirto xukuumadda kulmiye qaar la xidhay qaar ay dhinteen qaar ay tacadiyeen waxaan leenahay intii dhimatana faataxada ayaan u maraynaa ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo intii dhaawac ka gaadhina ilaahay ha u sahlo waxaan cambaareynaa oo aanu ka xunahay falkii aan hore uga dhicin Somaliland ee lagu weeraray wargeyska Hubaal ee waliba taliyaha booliiskuna cadeeyay in dadka la qabtay ay yihiin niman ka tirsan ciidanka booliiska taasoo aan ahayn mid hore uga dhacay Somaliland caqabad iyo dhibaatana ku ah nabadgelyadeena jiritaankeena iyo sumcadxumeena taraysa waxaan rajaynaynaa in xukuumaddu talaabada ugu habboon ka qaadi doonto sharcigana hor keeni doonto anoo hadalka badinayn falkan u dambeeyay ee Hubaal lagu weeraray ninka lagu dhaawacay wuxuu ka mid yahay guddiga suxufiyiinta guddiga fulinta ayuu ka mid yahay ninkii hore dilku ku dhacay ee lagu dilay laascaanood ee isna wariyaha Universal ahana wuxuu ka mid ahaa guddiga fulinta labada xubnood ee imika dhaawacay iyo dhimashada la gaarsiiyayba waxay ka mid yihiin guddiga fulinta ee ururka Soldier ta kale waxaan cambaareynaa isurtaagii shalay lagu sameeyay suxufiyiinta Somaliland ee magaalada Hargeysa iyaguna doonayay inay muujiyaan ama dabaaldegaan maalinta saxaafadda adduunka waxaan rajaynaynaa dhibaato kasta oo soo gaadha ama waxyeelo kasta oo soo gaadha suxufiyiintu mar un bay ka gudbi doonaan muhiimadda ugu weyn weeye in la ogaado saxaafaddu inay tahay wehelka bulshada sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan wariyaasha ka howlgala gobolka Togdheer iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo aqoon-yahan kale oo tiro badan hayo ugu horeyn saxaafadu waxay u adeegtaa bulshada suxufiga waxa lagu weeriyay waxa weeye wuxuu tilmaamayaa musuqmaasuqa iyo wixii bulshada dhibaato ku ah inta lagu weeriyay waa inta anoo hadalka soo koobaya xukuumadda qodob ayaan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay hore waxay xukuumaddu uga gaabisay inay ka waranto dilkii loo geystay suxufigii Axmed Saki ee lagu dilay magaalada Laascaanood xukuumaddu way ka gaabisay ilaa hadda inay ka waranto dilkaasi meeshuu ku dambeeyay iyadoo ay taasi jirto oo ninkaas ka mid ahaa guddiga fulinta ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa haddana nin kale oo ka mid ah guddigaasi fulinta oo ah mas'uul ka tirsan wargeyska Hubaal ayaa haddana lagula kacay dhacdo kale oo fool xun oo ku cusub Somaliland xukuumaddu labadii nin ee dhacdada geystay ninna goobta ay lagu qabtay ninna wuu baxsaday xukuumaddu ilaa hadda kamay jawaabin ninka dhacdada fool xun wargeyska Hubaal u geystay salaan runtii maanta iyadoo ay tahay maalintii saxaafadda adduunka xuska kullana waxa noogu soo beegantay waqti marka laga hadlayo Somaliland waqti aad noogu xun oo mugdi dhibaato fara badan handadaad caburin dil iyo dhaawacba aad muddo suxufiyiinta Somaliland in la isugu daray qaarkood sidoo Kayse xusay way ku nafwaayeenba mishanada ama waxyaabaha haatan dalka socda ee la doonayo in lagu hor istaago wararka xaqaa'iqa barnaamijyada iyo waxa la faafinayo sidoo kale haddii tusaale ahaan u soo qaadano dhacdadii ugu dambeysay ee wargeyska Hubaal waxa ahayd mid ka baxsan bilaantinimada inta badan Somaliland iyadoo sanadkan iyo sanadkii hore marka la isku daro suxufiyiintu ay ku dhow yihiin 290 suxufi inta xabsiga galay oo qaarkood ku jireen haween isla markaana aanu jirin saxafi kaliya oo si sharci ah maxkamadda loo hor keenay oo dambi lagu soo oogay dambigaasna lagu xukumay balse marka la xidho maalmo xidhnaada la sii daayay waa la cafiyay iyadoo sida sharciga oo yaala dalkeena iyo dastuurkeena uu qorayo in qofka haddii uu dambi leeyahay dambigiisa lagu qaado haddii kalena xorriyadiisa loo soo celiyo
aad baan runtii uga xunnay horta tacadiyada dhacaya ee saxaafadda somalilan la soo darsaya sidoo kale waxaan aad u cambaaraynaynaa dhacdooyinka ugeybka ah ee aan hore looga baran inay ku soo absiibto saxafiyiinta somalilan ee hadda bilaabmay waxaanan ugu baaqanaa xukuumadda iyo hay-adaha amniga oo ay tahay howlahooda shaqo ay qarankan iyo shacabkan ay u hayaan inay ka hortagaan dhibaatooyinka hadda bilaabmay intaanay intaas kasii faafin runtii anigoon ku dheeraanayn hadalkayga waxaan aad ugu mahad celinayaa shacweynaha somalilan ee mar walba barbar taagan horumarka saxaafadda somalilan inta jecel dibudhaca saxaafadda somalilanna ma guulaysan doonto haddaan nahay suxufiyiinta gobolka togdheer iyo guud ahaanba saxafiyiinta somalilanna waanu sii wadi doonnaa howlaha aan u hayno bulshada somalilan ee dhanka horumarka aad ba mahadsantihin ugubkaynugu ah xarigga iyo dilalkii hore iyo waxaasoo dhan ilaa 9 suxufi baa intii 2 sano dambeeyay garasa dhacdooyin xun gaadhay malal waxaasoo dhan markaa iska laakiin arrintan ugu dambeysay ayaa arrin ummadda oo dhan ama ummadda Soomaaliland aad u taabatay dhibaatooyinkii barnaamijka saxafiyiintii hore sheegteen inaanay ahayn mid oo dastuurkeena iyo innaga iyo qaran ahaan baynaan aad u falxun aad baan u cambaaraynaa waxaan leenahay ciday khusayso iyo hay'adaha sharciga dadka dhibaatooyinka geysanaya si degdeg ah loo orgayo halgankii dheeraa ee Soomaaliland maanta dawladda ururka kulmiye uu ku soo gaaray guusha in maanta lagu waxyeeleeyo gudaheeda ama lagu xumeeyo waa mid aan dhacayn tacadiga loo geysanayo saxafiyiinta waxa weeye waan ka soo horjeednaa sida runtii waxa weeye in xuquuqdooda la ilaaliyo ambaarinaya falkii ka dhacay ugu dambeeyay marka dhacay Hargeysa ka dhacay lagu weeraray xaruntii wargeyska Hubaal ay tiyaa soo saartay isku geey rugtay saxaafadda Somaliland aad iyo aad baan uga xunnahay waan idinka tacsiidanaa dhibtayna soo gaaraysa waxaan idinku boorinaynaa in aydan kulliyad jabin maalintii qabsteen miiriyada waxaan qabaynay saxaafaddu madaxweynaha iyo xukuumadda kulmiye meesha saartay saxaafaddii meesha saartay inay dagaalkii horeeyay ku qaadaan iyaga uu noqdo waydu arkaysaano institution inoo haray ma jiraan saxaafadda ahayn dawladdu dib ha u isugu noqoto dibna ha uga fiirsato saxaafadda tacadiga ay kula kacayso aad kelmadiinu aanay noqonin kelmad markaad tiraahdaan ummaddu dhibaato ka abuurta oo isku dishay waa inay noqotaan dhexdhexaad oo wixii jira taasay ummaddu idinku jeclaanaysa sidiga mudan bulshada rayidka ah idinku TV-ya idin sheegay wargeysyada sheegay dad caanaati bal maxaa nin baa yidhi qoraxda kululaya xaynta xaggeeda u darartay bulshadii rayidka ahayd ka warrama ugu dambeyntiina kulankani lagu weyneynayay xuska maalinta saxaafadda adduunka ee 3 May isla markaana sidoo kale lagaga hadlayay tacadiyada suxufiyiinta Somaliland ayaa isagu ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta Somaliland uu soo food saaray culays isugu jira tacadi xarig dil iyo waliba handadaad fara badan maxamed Awood Maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News Buro